waxaan rabaa inaan ku taliyo oo caawa fariintan la iga qaado dalkan 27 sano 28 sano ku dhawaad dadka marka la fiiriyo la taariikhda waxba laga bartaa marka la fagur la sameeyay arrimaha caalamkana heerka ugu hooseeya wax la fagura waa qofka meesha caalamka iskuma dheeriyo qaaradda iyo gobolka la iskuma dheeriyo qaran xataa lama fiiriyo bulshada lama fiiriyo qofka la fiiriyo laana qofka wuxuu yahay unuga ugu yar qurubka ugu yar sida atamka oo kale marka wax la fagurayo Soomaalidii hore marka qofka ay ku wareeraan xanuunkiisa iyo cajiskiisa lagu wareero khidma la saari jiray ani sababta Soomaaliya khidma loo saari laayahay walla yaaban quraan loo saari laayahay walla yaaban akhyaaray waxaad moodaan 27 sano ku dhawaad 28 sano kadib meeshan munaasabad iyo xaflad geeli lahayn waxaad moodaan inay nooc tacsi ah noo taalo mucaaradkeena reer magaal noqda in xukuumadda la ragaadiyo aqligiisu ku soo idlaada nin karmeedka bulshada rayidka ah wax xishooda waa aamusa xukuumadda waxay soo qorqoratay waad moodaan in intaas uu yahay aqligii Soomaalidu ay kaligeed isku koobto dadka annaga la midka ana halkaan ama qaxooti ku nahay ama noloshan la xarbinaynayo noqosho male xagee ka bilaabaysa hadaad dalkii aadid daadan 20 sano aadin meel laga bilaabo lama garanayo waxaan rabaa inaan xusuusiyo inuu dhamaanteen mid kasta oo naga mid ah inuu jiro wareeg taariikhi ah oo weligii soo socday maalinkan dhalanay ilaa maanta in walba da'diisa iyo gabar walba da'deeda ku xiran tahay wareegaas taariikhigaana asagana waxa socda oo nadul saaran waajibaad qaran level kala duwan leh laakiin qaranka aan ka aado qof kasta oo naga midana waxa looga fadhiyaa inuu qaaraan ku daro intuu rabo hal leeyahay inuu qaaraan ku daro waxaan raacaynaa ila dhaarisan ilaahay idankiisu aan Muuse biixi ilaahay ku dhaarino Abdi Wali Gaas ilaahay inaan ku dhaarino subhana Ahmed Madoobe ina ilaahay ku dhaarino Sharif Xasan ina ilaahay ku dhaarino Waare ina ilaahay ku dhaarino awowgay xeef inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaarino Sheekh Ahmed Shaakir ina ilaahay ku dhaarino diiniga civil society madaxda ina ilaahay ku dhaarino dalkan 28 sano wax ka badan oo dambe la haystama idin ahaana ilaahay ka yaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yaaba xaasaskiina caruurtiina mustaqbalkooda u yaaba annaga kaayaga u yaaba han siyaasadeeda nagu jira mid dhaqaalaha nagu jira mid bulshada nagu jira mid farsamaha nagu jira waxaan u baahanahay qof kasta oo Soomaali in looga faa'iideysto wuxuu qaban karo in fursad loo siiyo inaan islii sii joogno 20 sano kadib mana anfacay xalkuna kuma jira intaan soo noqon inaan qori qaadno oo haddana 20 sano kale inaan idinka meesha idinka saarno inaan gelino kuma jirno waa habsaanay Syria kala dalkii kama rabno waxa ka socda Afghanistan kama rabno Iraq oo soo raysanaysa hatta kama rabno dalkeena waxaan nabad iyo caani dawladnimo inuu u baxo waxaan aad ugu faraxsanahay in damiirka qofka Soomaaliga uusan sidaas ku dhimanaynin imaaraad shalay yimaadeen berrina waa bixi doonaan Arsenal shalay yimaadeen berritana waa bixi doonaan laakiin waxa mar walba joogi doona oo raagi doona waxa weeyaan waa qadiyada waa Soomaalinimada waa jamhuuriyadda weeyaan waa jamhuuriyadda waxa la ineen qaatay Muuse Biixi aan ka soo bilaabo oo meesha ugu cirifka ugu shisheeye raas casayr ilaa meesha la yiraahdo raskamboni waa koonfur weeyaan raas casayr ilaa geeska kale ee jamhuuriyadda aan ka keena ka soo bilaabe ilaa Axmedowo koonfurta jooga wareeg taariikhi ah socda waxba la inaan ku xusi doonaa maxaad qaaraan noo reebaysan mise la haystaan idin ahaanayna weligan federaal iska daba wareegan ku jireyna sanad guuro inoo dhiibtaa wax culays oo ay leedahay farmaajo iyo khayra la fariisataan male dii mucaarad la yiraahdo xalaalnimo ana idin kugu mucaaradsan laana weligay eexna ima gelin bunooga macfi waxay khaldamaan runtaan ka sheega waxay ku fiican yihiin runtaan ka sheega weligoodna laalush igu maydayn awowgay xasan aan igu dayin Sheekh Shariif aan igu dayin ninka leeyahay Abdullaahi sallallahu rahmadaan igu dayin bal dunta Soomaalida ilaahay idinku dhaariyay meesha ay maraysa fiin intaasaan qaylinayay awowgay Cabdiqaasin weligiis igu dayin iyo ra'iisul wasaarayaashiisa laalush igu dayin qof walba markaan isarana waa sheekaysana
أيوة فرحسنا وقت لأن قرنا مقاطع waxay khaldaanna uma qari hatta haddaan xaashi qori waayo idaacadahan ka hadla waxa anda sidaa la isu dhaamo waxaan rabnaa haddaynan annaga wax noo tareen nimankaan la hadlayo was garanayo nimanka hadda magacooda sheego min Muuse Biixi ugu shisheey wax aad xorowday iyo jamhuuriyad kaliya iska leedahay ma jirto waa kula leen annaga iska leh wax xorowday ma annaga iska waxaan maqlaay Kismaayaa gabar lagu xiray iyo garowa wiil lagu xiray iyo baydhaba qof lagu xiray iyo dadka xiraysaan inay idin xiraan kama yaabtaan ma idinku nafsi kama baqaysaan waliba da'da ku jirtaan dad xabsi qaadi kara ma ahidin wada dhiikar iyo sokor imtixaan qabtaan asaskiina u tura caruurihiina u tura deriska iyo ehelka u tura annaga noo tura intaan ka badan la haystan idin ma ahan karo waxaan u baahannahay shirweyne qaran inaan qabsano hadday farmaajo iyo khayr idin maqli waayaan waxaan u haysanaa ninka la yiraahdo mursaliyo awogay waxaan u haysanaa gudoomiyaha aqalka sare ee sheeg maxamed cabdi xaashan oo haysanaa iyo diinigii bulshada reedkan oo haysanaa annaga idin la fariisinayna haday fariisan waayaan annaga idin la fariisinayna dalkii waa tagay xalana wax ka socda kama warqabno daroon Soomaaliyeed bal iska kaxeeyo waxa la leeyahay nimanka yarka Arsenal la cayrsana markaas maata la leynaya magac Soomaalida lagu leynaya war inteen samri karnaa ilaahay idinku dhaariyay intee si aamusnaan karnaa oo ku qanan la'aan karnaa afartankii madaxan ka bixina kontonkan ku socona annagu soo mustaqbal ma lihin dhalinyarada intaan leego inta fadhida soo mustaqbal ma leh meeqay jaamacada wadi karaan war caruurtiina soo kama naxaysan ta annaga naga naxayn kuwa aad dhasheen soo kama naxdaan in cudurro xun ku dhacaan laana mushaarka qaadanaysaan waa xaraam waa shirin imaaraad bixiyo waa xaraam shirin ajnabi kali oo bixiyo waa xaraam ilaahay ka yaaba daan hore idinkugu sheegin ana inii sheegay Ibrahim Bursiid caaw idin sheegay ilaahay ka yaaba والله العظيم أدون كان لقوا حساب تمايا قيامة وارجع قيامة واردك أدون كان لقوا حساب تمي دونا والله حساب تمي دونا